Today we are honoring Somali Week. Back in 2017, City of Minneapolis recognized July 1st as Somali American Day. golaha deegaanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka kooban 13 mudane ayaa maanta cod aqlabiyad leh isku raacay in maalmaha xorriyadda dalkeena Soomaaliya loo asteeyo maalin u gooniya waxaana qalinka ku duugay duqa magaalada Minneapolis mudane Jacob Frey. golaha deegaanka ayaa isku raacay sharcigaas waxaana ay u atahay ummadda Soomaaliyeed maalin gooniya. maalmaha xorriyadda ayaa waxa sanad kasta soo qaban qaabiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo la magac baxay Somali Week iyagoo kaashanaya hay'adaha كاتشوك iyo Raysan Nomad oo labaduba ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed. gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan ayaa ka warbixiyay sharcigaas iyo sida ay ugu suurta gashay. maanta halkan magaalada Minneapolis waxaan ku xusnay muhiimadda ay u leedahay Somali Festival ama Somali Week oo 10 sanato hay'adda Maxamed Faarax hogaaminaya oo Katchook ay ka soo shaqeynayeen. waad ogtihiin 2014kii July 1st oo ah Somali Independence Day waxaa loo recognize gareeyay inay tahay Somali American Day. marka maanta City Minneapolis waxay go'aan ku qaadatay inay tahay eventyaasha waaweyn oo ka dhaca Minneapolis inay muhiim uga tahay Somali Week oo sanadkan bilaabanaya June 29. marka staffka Katchook iyo Raysan Impact kulligood aad baa uga mahadcelinaya. idinkana waxaan jeclahay inaad timaadiin. waa family friendly event, waa meel culture-keena iyo dhaqankeena iyo hidaheena aan ku soo saarayno. maantana magaalada Minneapolis inay ka mid noqoto shaabadana ku dhufatay inay tahay aad iyo aad event ugu weyn ama xus weyn oo ugu weyn. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galnay. City Minneapolisna ay recognize gareysay Somali Week as July 1st. Jamaal Cusmaan ayaa waxa aan weydiiyay maanta waxay uga dhigan tahay maadaama uu 13 xildhibaan ee golaha deegaanka uu kaligiis Soomaali ka yahay isla markaasna laga soo doorto degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. ani maanta waxay iga dhigtay wax weyn qof immigrant ah oo Soomaali ah oo badanaa xataa jagadii iyo kursigii representation community ku leh. maanta waxay iga dhigan tahay meeshaan inaan meel dalkeena ay tahay carruurteena ay ku dareemayso dalkooda inay joogaan. event weyn ahna oo loo dhigo mar walba Somali Weekna ay muhiim u tahay. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waana wax aad ii farax gelinaya. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Somali Week maalmaha xorriyadda mudane Maxamed Faarax ayaa soo dhaweeyay guusha maanta ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay wuxuuna u mahadceliyay gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cusmaan iyo guud ahaan golaha deegaanka magaalada Minneapolis. maanta waxaan ku faraxsanahay in City Council-ka oo matala Minneapolis inay maanta u codeeyeen ama qoslaan maalmaha xorriyadda Soomaaliya. sababta ay tahay maalmaha xorriyadda Soomaaliya waa maalin muhiim noo ah. haddii aynu nahay guddiga qabanqaabiya Somali Week waxaan la qaybsanaynaa farxaddaanito Soomaalida adduunka meel walba ay ka joogaan. maanta wax meesha ka dhacay Minneapolis waa wax history ah. marka kulligiinba meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay hambalyo. waxaan oo soo rabaa xoog inaan u mahadceliyo walaalkeen City Council member Jamaal Cusmaan oo really u soo maxay tahay arrintaanito u soo bandhigay City Council-ka oo si fiican arrintan maxay tahay ka soo shaqeeyay on behalf of Soomaalida oo degan Minneapolis. hoosteeye jaamac waxay ka mid tahay guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda waxayna soo dhaweysay golaha deegaanka guusha ay maanta ku ansixiyeen maalmaha xorriyadda. intan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo City Council Jamaal Cusmaan oo nagu aqoonsaday maxaa la dhahaye shaqadii aan sameeyno iyo Somali culture-ka dhaqanka hindidii dhaqanka dad ka dhacda sanad kasta Lake Street. marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka dhan inay ka soo qayb galaan June 29 waaye Lake Street meesha ku qaban jirnay. insha Allah sanadkan waa dabaaldegaynaa waana ina arki doonaa insha Allah meesha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ka soo dhexmuudaan arrimaha siyaasadda, waxbarashada, caafimaadka iyo waliba ganacsiga. Daakeen Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota, Mareykanka.